Maxkamadda Darajada Koowaad ee Ciidamada Qalabka Sida ee Soomaaliya ayaa dil toogasho ku xukuntay Dame Sharif Barkadle Anyanle oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka kaasi oo lagu helay dambi ah inuu ku lug yeeshay qaraxyo iyo dilal ay fuliyeen kooxda Al-Shabaab. Sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay maxkamadda, Dame Sharif waxaa loo soo xiray oo dambigooda lagu helay inuu Muqdisho soo geliyay gawaari qaraxyo ah. Maxkamadda ayaa sheegtay inuu gawaaridaasi ku baakimay dhowr goobood oo ganacsi oo ku yaala Muqdisho sida Village Hotel, Restaurant 4, Bar Italia, agagaarka moolka Xamarweyne, maqaayadda Cagaweyne, Ex-Pilsan Restaurant iyo goobo kale. Waxay intaasi ku dartay in ilaa 27 qof oo shacab ah ay ku geeriyoodeen qaraxyada lagu helay Dame Sharif inuu soo geliyay caasimadda, isla markaana ay ku dhaawacmeen tiro kale. Waxaa sidoo kale lagu soo eedeeyay inuu iibiyay 2 hoobiye iyo 40 xabbo oo ah rasaastiisa. Maxkamadda Darajada Koowaad ayaa sheegtay inay ku xukuntay Dame Sharif Maxamed Barkadle Anyanle dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuumiintii ku naf waayay gawaaridii qaraxyada ahaa sida uu sheegay Ganshaale Sare Xasan Cali Nuur Shuute, Guddoomiyaha Maxkamadda Darajada Koowaad ee Ciidamada Qalabka Sida. Dame Sharif waa 53 jir ciidamada ka mid ahaa ilaa dowladdii Madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan uuna ka gaaray ciidanka darajada kabtan sida ay sheegtay maxkamadda.